gudoomiyaha golaha shacabka gudoomiyaha aqalka sare ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaare ku-xigeenka golaha wasiirada labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka gudoomiyaha gobolka Banaadir Allah mahad leh oo runtii caawa halkan isugu keenay meeshaan neecawda ah oo qurxoon oo wanaagsan waxaan uga mahad celinayaa ra'iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyay lixaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay khaasatan aan wax ka sii raahdo baarlamaankan tobnaad anigu waxaan aaminsanahay inaad ka duwan tihiin kii sagaalaad iyo sideedaad iyo kuwii ka horreeyay waxaa uga duwan tihiin runtii waxaa qayb ka tihiin ama aad hormood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dowladnimo oo ahayd wax horey loo waayey oo dib noo dhigay waxaad bannaanka ka istaagteen wax alla wixii khilaaf ah dowladnimo sideedu waa iska crisis oo waxa weeye wax la manage gareeyo hadba dhibkii yimaada ileen waxaa la maamulayaa 15 iyo 20 milyan dad gaaraye oo weliba xaalad adag soo maray oo 30 sano dhib ah soo maray duruufo badan ay jiraan marka waa imaan annagana de Soomaalida waa u sumaysannahayba khilaaf iyo iska horimaad iyo muran waa u sumaysannahay iyo qof walba inuu sidiisa u boqoran yahay waa u sumaysannahay xaqiiqatan waxay ka fogaadeen wax alla wixii khilaaf ahaa waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dowladnimada iyo ama dib u dhac u keeni karay waxa arkaysaan oo leeyahay waa la qabtay waxay ka ahaayeen hormood iyo ka ahaayeen horseed ayay ka ahaayeen la'aantood deganaashahooda iyo xasiloonadooda iyo wada shaqeyn la'aantoodana wixii la qabtay laba qabteen marka waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin talabaad wada shaqeynta dawladda dhexdeeda ah dhaqankii siyaasadeed oo hore waa bedelnay oo waxaan ku bedelnay wada shaqeyn waa sax perfect ma jiro ilaahay baa yaa dhan bini aadan baan nahay khaldaad waa iska imaan dib waa iska imaan karaa laakiin waxaan ku dadaalnay in aan dhexdeena wada shaqeyno in madaxtooyada iyo golaha wasiiradu ay wada shaqeeyaan golaha wasiirada iyo labada aqal ay wada shaqeeyaan dawlad ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed oo iyagu sovereignty ah iyagu dawladnimadii iska leh inaan wada shaqeyno waxa weeye wada shaqeyntaasna qayb weyn waxa ka ah golaha labada aqal iyo qayb weyn ka ah tan saddexaad in aan kala madax banaanahay waa cadeynay in hay'ad walba oo dastuuri ah hay'adaha kale ee ka madax banaan yihiin way muuqataa oo wax isku dhex jira ma jiraan oo nala arki maayo waa sax loobi waa jira laakiin waxaan u dhaafnay golaha wasiiradu inay hawshooda qabsadaan labada aqalna hawshooda ay qabsadaan taas xaqiiqatan waa wax runtii nagu cusub waxay keentay marka inaan shuruuc badan ay ansixiyaan wada shaqeyntaas waa saad maqlayseen 22 sharci iyo ansixiyeen 20 iyo ansixiyeen laba kalena waa la yaala macnaheedu waxay tahay juhdiga galiyeen iyo shaqada qabteen waa markaan leeyahay lamid ma aha kuwii ka horreeyay waana ku mahadsan yihiin shuruucdaas waxaa ka mid ah marka kii maanta ay ansixiyeen oo ahaa shalay oo ahaa kii doorashada sharciga doorashada aad iyo aad runtii ugu mahadsan yihiin annagu waxaan filaynay in muddo dheer ay qaadanayso bacdama waqtidan marka la soo gaaro xoogaa ay timaado iskhilaafaad iyo cudur darro fara badan laakiin runtii aad iyo aad yaan runtii uga mahad celinayaa sharcigaasna wuxuu ka bilowday heshiiskii baydhabo iyo ka bilowday baydhabo markaan soo tagnay
beedhaba agreement dowlad goboleedyadii iyo annaga markaan halkaas ugu tagnay iyadoo la leeyahay waxba lagama soo saarayo oo sida uu sheegay Duqa Cabdulle inta badan dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta ah lagama filo inay wax isku raacaan aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo sameyn lahaa oo qof walba uu saxiixay uu committed uu ku noqday qof walba uu saxiixay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraadka iyadana inaan isku raacnay oo aan wada saxiixnay waxay ay saxiix aan wada saxiixnay in doorashada 2020ka iyo 2021 ay u dhacdo qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awoodooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan wixii ka dambeeyay marka waxa iska leh diyaarinteeda iyo ka shaqaynteeda xukuumadda iyo labada gole ee baarlamaanka yaa iska leh annagu waxaan soo diyaarinay marka midkii ugu sahlanaa iyo xukuumad soo diyaarisay oo aan islahayn wuxuu midayn karaa dalka oo single constituency la yiraahdaa oo hadda tahay xildhibaan inaad matalayso dalka oo dhan aad matalayso codka Kismaayo aad ka hesho uu yahay cod aad ka heshay Baydhabo kan Baydhabo aad ka heshay uu yahay mid Boosaaso aad ka heshay iyo guud ahaan dalka oo dhan iyadoo cidna la siinin special status aan la siinin waxaan u arkaynay inuu yahay kii ugu fududaa kii xoojin lahaa multi party systemka ahzaabaan xoojin lahaa oo xisbi dadku ay u dooran lahaayeen intay u dooran lahaayeen shakhsi anu marka hadii kaas way kaan rabnay dad badan oo halkan fadhiyana laga yaabo inay ahaayeen kaas inay rabeen waana laga raay mid kale la soo baxay annagu kaas waxaan u arkaynaa xaqiiqatan inuu ahaa mid aan ku burmood gareyn karno aan u sheegi karno shacabka xisbiga مثلا dawladdu oo laga yaabo xildhibaano badan inay qayb ka yihiin inaan raacno xildhibaanadani hawshaas soo qabteen hadaa doonaysaan xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho dib u soo doorto laakiin waxaad la timaadeen mid annaga aan shaqo ku lahayn oo qof walba iskiis u raadsanayo xilkiis laakiin aad sheeganaysaan ahzaab galaad ka sheeganaysaan laakiin dadka way idinku codeynayaan shakhsi ahaan wixii aad tartay dadka aad tartay ama deegaankaas aad tartay qofkii diida marka sharcigaas waa qof aan rabin awoodda dadka in lagu celiyo maxaa yeelay mid annagu aan wadanay maaha waa mid golaha shacabka labada aqal oo shacabka Soomaaliyeed 15 milyan ama 20 milyan matalaya ay iyagu keeneen intay guddi u saarteen shirar badan galeen xitaa xamar ku filaan weeyday ee dawladda wadamo kale aadeen si ay ugu dhuntaan oo ay u soo saartaan waxa ay u arkaan inay dan u tahay dalka waxa la filayaa marka bacdama kii annagu aan wadanay uusan ahayn inaan loobi ka gali doono oo dad badan ay u fasiri doonaan inaan isku cabireyno dharkaas laakiin waa u deynay sharcigaasi waa kana horteedu yaala hortiinaan ku saxiixaya caawa waxaan codsanayaa labada gudoomiye iyo labada prime minister inay garabkay soo istaagaan caawa laga bilaabo dalku doorasho aad hal ogaado bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed markuu arkay qodobka 87 farqada koowaad iyo farqada labaad ee dastuurka markuu arkay qodobka 9aad xarafka fa ee dastuurka markuu arkay warqada gudoomiyaha golaha shacabka baahida loo qabo in la ansixiyo lana meel mariyo sharcigan waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharcigan qodobka koowaad laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxeexo sharcigan waxa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxeexo sharcigan waxa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed
waxaan u hambaliyanayaa mar kale aan u bogaadinayaa baarlamaanka labada aqal xildhibaanada sharafta leh yaan u hambaliyanayaa waana intaan sheegayo weeye inay yihiin baarlamaankan tobnaad aniga kolleyba fakarkayga iyo ra'yigayga kii ugu fiicnaa ee dalka soo maray shacabka Soomaaliyeed waad aragtaan in dib lidinkugu soo celiyay awoodiinii in gacanta lidin soo geliyay in golaha shacabka aqalka sare labadaba iyo anigu aan caaw halkan ku seexay inaan doonayno in aad gacanta ku qabsataan awoodiina aad ugu codaysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shakhsiga aad doonaysaan khaasatan dhalinyarada la yiraahdo 75% oo mustaqbalka iska leh oo qaarkood aaminsan inuu waqti badan ka lumay hadda awoodda gacanteeda kugu jirtaa waxa loo baahan yahay in la iska dhigo qoryaha oo qalinka la qaato oo aad codaysaan aad u codaysaan qofka iyo xisbiga aad isleedihiin waa ugu wanaagsan yahay qaabiilka ka fogaada waxaan doonaynaa doorashadan inay noqoto doorasho nabad ah oo xalaal ah oo dadkoo dhan ay u siman yihiin maxaa yeelay waa markii ugu horeysay 50 sano ka bacdi awoodiina gacantiin lagu soo celiyay waxaa idinka rabaa oo kaliya in idinkoo raalli ah aad doorataan cidda aad rabtaan waqtigii colaada isjijiidka iyo isriixa waa dhamaaday maanta waxay tahay qofka aad dooranayso ama xisbiga aad dooranayso inaad ku doorato wax qabadka xisbiga iyo shakhsigaasi wuxuu u yahay marna ha ku dooran dangaar ah marna yaan lagu dooran qabiil iyo qabyaalad maxaa yeelay waa soo marnay 30 sano iyo ummadeenu dhibaataysnayd dhiig badan u daatay hanti badan iyo dhaqaale badan ee burbureen maanta waxaan u dhaqaaqnay jidkii ama wadadii ama dariiqadii dimuqraadiyadda yaan u dhaqaaqnay haddii awoodiina gacanta lagu soo celiyay waa inaad u gudataan waajibaadkiina si nidaamsan xilkasnimo ay ku jirto oo dal jecel ah oo wadaniyad leh dawladdan waxay ka shaqaynaysaa in loo sinaado oo electionka ama doorashada ay u dhacdo si loo wada siman yahay oo xaq ah oo xalaal ah oo la arko oo la wada arko siyaasiyiinta waxaan leeyahay iimaansada shacabkiina iyo dadkiina iyo shuruucda hadda jirta oo kan uu kow ka yahay iimaansada credit cid gaar ah ku qaadanaysa ma jiraan hawsha socota hawshan waxay ka soo bilaabatay hadda wax ma bilaaban waxay ahayd wax soo taxnaa oo soo socday ahayd marba heer soo maraayay iyo marxalada soo maraayay waxay soo martay waqti oday dhaqameed ee uu soo xulayay oo xildhibaanada soo xulayay oo garwadeen ka ahaa madaxweyne ka ahaa madaxweynihii hore Sheekh Shariif ka ahaa waxay keentay in xildhibaano ay yimaadaan xildhibaanadaasi meesha aan soo gaarno ay wax soo gaarsiiyaan madaxweynihii ku xigay yaa ku yimid oo lagu doortay oo Xasan Sheekh ahaa isna waa in haaskarey kor u qaaday wuxuu ka dhigay 51 qof in erga ah inay idin soo doortaan saasa halkan ku fadhidaan marka macnaheedu waxay tahay waxay soo qaateen oo ay ku leeyihiin legacy ama taariikh ku leeyihiin xilliyada iyo marxaladaha aan marayno oo hadda ay ugu dambayso inaan dadka aan taladii dib ugu celino iyo awoodoodan dib ugu celino marka creditka kulli waa la wada leeyahay ugu dambeyn hawshani waxa loo gudbinayaa guddiga doorashada madax bannaan iyaga laga rabaa inay la tashi ka sameeyaan oo ay kala tashadaan xildhibaanada ay kala tashadaan xukuumadda ay kala tashadaan civil society-ga ay kala tashadaan dadweynaha guud Soomaaliyeed ay kala tashadaan dawlad goboleedyada ay kala tashadaan beesha caalamka ay kala tashadaan maxaa yeelay talada adaa ku nool iyada kuma noola laakiin shaqo sahlan ma aha aan u duceyno Allah u fududeeyo ugu dambeyn sanadkan waxay ku aaday 60 guuradii ka soo wareegtay
waqti aan qaadan xorriyadda 1960kii waa 60 jirsanay sanadkan July 1deeda waa 60 jirsanay waxay leedahay marka xusuus gaar ah dabaaldeg weyn oo aan ku faraxno ma jiraan oo dalkii wali dhibaatooyin badan yaa jira laakiin xusuus iyo taariikh aan wax ka baranno aan wax ku qaybsanno iyo leedahay oo aan muujino inaan intaas ka adagnahay oo resilient aan nahay oo aan muujino dalkeena inaan dib u dhisano oo aan muujino dib u heshiisiin dhab ah inaan galno oo aan muujino sidii aan ku keen lahayn midnimada Soomaaliyeed aan ku keen lahayn macnaheedu waa inaan wada istaagno xusuustaan 60 sano 30 sano waxaan ahayn dal iyo dad midaysan 30 sanona waa kala soconnay waxaan rabaa inaan wada duceysano kulligeen intaan ducada bilaabin waxaan idinka codsanayaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay xusaan oo la isu diyaariyo oo qof walba qaybtiisa ka qaato kaalintiisa ka qaato haday tahay waxa ugu yar geed inaad beerto haday ugu yar tahay inaad qashinka gurigaaga ka hor qaado haddii kalena aad saacad ama 2 saacadood usbuuci aad galiso danta guud aad galiso si aan u nadiifsano qof walba meeshu joogo hadda meeshaan joogno Muqdisho ay nadiif u noqoto burburka ka muuqda ee aan qurxisano aan u ekaysiino dalkii siduu ahaan jiray dal nabad ah oo bilicdiisii quruxdiisii la soo noqday saas darteed qof walba oo Soomaali ah meel kasta uu joogo waajibaadkaas saaran xusuusta 60 guurada darteed qof walba inuu isxilqaamo uu kaalintiisa qaato wax alla wuxuu ku tari karo dalkiisa iyo deegaankiisa inuu sameeyo aan duceysano marka aan duceysano Ilaahay inuu nabadna siiyo Ilaahay inuu dhibka naga dulqaado Ilaahay inuu midnimo noo keeno Ilaahay dhexdeena inuu burcad isu mariyo ama farmaajo isu mariyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh